boqolkiiba 20 waxqabadkaaga ayaa keena boqolkiiba 80 guushaada. Ogow waxa ugu muhiimsan maalin kasta, usbuuc kasta. Haddaba, wakhtigaagu waa noloshaada. Sidaad u maarayso wakhtigaaga ayaa go'aamisa mustaqbalkaaga. Ma ogtahay in boqolkiiba 80 dadka guulaysta ay si gaar u qorsheeyaan maalintooda, toddobaadkooda iyo sanadkooda? Haddaba, asalaamu calaykum dhammaantiin meel kastoo dunida dacladii ay kaga sugan tihiin. Ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta. Waxaan ka hadli doonaa sidee loo qorsheeyaa maalinta, usbuuca, bil iyo sanadka si hufan. Annagoo adeegsanayna tusaalooyin iyo run ahaantii talooyin fudud oo wax ka beddeli doona insha Allah noloshaada. Haddii aad rabto inaad si miyir leh u noolaato, baro si miyir leh in loo qorsheeyo. Qodobka ugu horreeya ee isu taagi doono maalinta oo run ahaantii bilowga qorahaaga ee qorsheynta. Maalin walba waa fursad cusub. Sida aad subaxdaadu u bilowdo ayaa saameyn toos run ahaantii ku yeelata dhammaadka maalintaada. 10 daqiiqo subax kaste qor oo qorshee waxaad doonaysid ayaanta. Dadka wax badan qabtas run ahaantii waxay qorsheeyaan kalihii daakiraadii subaxii waxay sameeyaan maalin kasta 5 ilaa 10 daqiiqo ku celis inay qoraan qorshahooda ay maalinta ku meel marayaan. Waxaa la dhahaa maalin aad qorsheynin waa run ahaantii waxay la mid tahay maalin la jihayn. Haddaba, qodobkeena labaad waa usbuuca. Seen u qorsheynaa usbuuceena, taasoo ah jihaynta toddobaadkaaga. Usbuuc walba wuxuu run ahaantii kuu oggolaanayaa mudan iyo marwo inaad isku darsato yoolalkaagii maalmeedka aad soo qabatay si aad run ahaantii u gaarto isbeddel muuqda. Haddaba, waxaad samaysaa tusaale ahaan qor 3 waxyaabood oo muhiim ah oo doonaysa in run ahaantii inaad dhammayso usbuucaas. Dadka isticmaala jadwalka usbuuca waxay boqolkiiba 30 ay ka wax soo saar ka fiican yihiin kuwa aan qorsheyn toddobaadkooda. Haddaba, haddaan isla fahanay, waxaan isla eegaynaa qaabka loo qorsheeyo bisha. Bishu waxay ku suntan tahay waa buug cusub. Haddii aad bilowdo qorsheyn, waxaad helaysaa isbeddel muuqda. Hadda waa sidee? Isticmaal qorsheynta bisha oo samee yoolal smart ah. Ka soo qaad tusaale ahaan qor bishan July ama June dhammaystirka koorso inaan jimicsi sameeyo. Bil aan la qorsheyn run ahaantii bil aad qorsheysay waxay la mid tahay bil aad guul weyn gaadhay. Haddaba, haddaan isla fahanay intaa, waxaan tegaynaa si yaroo gaaban sanadka oo run ahaantii hadaf fog iyo himilo aad rajaynayso. Sanadkaagu ma u diyaarisay, ma u dejisay run ahaantii mudan iyo marwo yoolal goal ma samaysay? Haddii kale, waxaa run ahaantii aad wadi doontaa dabeecadahaagii hore eed samayn jirtay. Kala qaybi yoolalkaaga xagga shaqada, aqoonta, xirfadda. Tusaale ahaan 2025 bar luuqad cusub, akhri 12 buug, tababar xirfad samee. Run ahaantii waxaa la sheegay dadka qoray yoolalkooda sanad waliba waxaa la sheegay taqriiban boqolkiiba 42 ay ka run ahaantii ka badan yihiin kuwa gaara run ahaantii yoolalkooda. Maadaama u cad yihiin yoolalkii ay qorteen, waxaa la odhan karaa easy inay gaaraan. Haddaba, run ahaantii waxaad samaysaa isticmaal qaab sax ah oo kuu fududeynaya run ahaantii qorsheyntaada. Isticmaal digital tools, manual tools. Maantay qalab la'aan oo run ahaantii waa qorshe la'aan. Waa inaad qalab samaysatid buu ku qoro.
waxaa jirta nidaamka ama xirfadda loo yaqaano Pareto oo qoray 80-20. Waxaa la sheegay dadka boqolkiiba waxqabadkaaga ayaa keena run ahaantii boqolkiiba 80 guushaada. Haddaba ogow waxa ugu muhiimsan maalin kaste, usbuuc kaste, sanad kastaba mudane 2 saacadood oo waxbarasho ah maalin kaste waxay run ahaantiisa waxay qaadanaysaa boqolkiiba 70 run ahaantii ay ku dhalaysaa. Haddaba marka aad qorshaysay la soco run ahaantii horumarkaaga. Jimce kaste 15 daqiiqo samee is-xisaabin waa muhiim mudane. Tusaale, ka jawaab 3 su'aalood. Maxaad qabatay? Maxaad dhiman? Maxaa kugu run ahaantii aad ku hagaajin kartaa? Qorshe la'aan, qorshe aan la socon, run ahaantii qorshe aan la socon wax riyo ah ama wax fog run ahaantii qorshe ma waa inaad meelihiisad run ahaantii riyo ku run ahaantii ku afogeysatid. Haddaba waxaan hadda fahnay sida loo qorsheeyo. Haddaba su'aasha muhiimka waxay tahay goorma ayaad bilaabaysaa run ahaantii goorma ayaa bilaabi doontaa qorshahaaga. Waxaan soo gaaray run ahaantii iminka gunaanadkii mawduuceena maanta qorshe waxaa run ahaantii maanta run ahaantii qorsheynta aad maanta samayso waxay run ahaantii dhalaysaa toddobaad aad jihaysay bil run ahaantii aad ka micno dhalisay waxqabadkaagii san run ahaantii aad goosatay micnihii run ahaantii guushaadii aad wixii aad beertay aad goosatay. Run ahaantii mudane iyo marow haddii aad rabto inaad noloshaadu beddesho qorsheyntu maanta bilow ka bilow. Hadda bilow. Haddaba haddii aad ka heshay barnaamijkan ka dhiibo faallo, like saar, subscribe oo la wadaag asxaabtaada mudane iyo marow. Waxaa sidoo kale faallo noo reeb hoosta. Maxaad qorsheyn doontaa toddobaadkaaga? Su'aal hayatay.